وعن ونكسن إذا لهان تيمبا خيارتا يا صاحبها هودا نجلا سعودوا سنتر كلا ببارة دجمة شلابة قبل كقرة حي هوس يمدا وحا كودقن بالشبذنا أو كودرسن حدك أما حد بيناتك ودحي الدجان كصومالي ذا إيو جمهورية دا صوماليا بالشدة هالكاسي كودقن إندو والبا أما تن إيو إنتي مدابة واحد شري عباشوين الله حريرا إن أي سنهلين حقوق ذي أي لهايين دينا عماملك سياسة دا إيو وليبا هرماركا arrimaha intooda badanna waxa ay noqdaan oo kaliya kuwa bulshada deegaankaasi ay iyadu iskeed u qabsato wax kasta oo bulshadu ay u baahan tahay nidaamkii dawliga ahaa ayaa gabi ahaanba la aaminsan yahay in aagaasi uu ka maqan yahay haddaba si aan arrimahaasi wax uga ogaano waxaanu khadka taleefanka ku tigsanay khaliif maxamed sheekh cabdiraxmaan oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee santarka degmada Lababaar iyo nawaaxigeeda خليف وهذه مغلي ساوان فيليا بل هذا واحد نوجا ورنتا حالات جود سنتر كلابار يديجا ماذا هوسي ماد وأنا هرتا سنتر كلابار يوحي هوسي هذا باهظة كم مكان وحلقة طبعا وح هذا برلس وكل كواكب انتهي واقرت أصلاً هذه أنسوكو سنتر كلابار دولتي من السراوي يحاتن أو أيمان كل شو أنت كنا حيسا وحن كتسر عندك من الشرابات وحن نجسو جاري الدولة وأنشرلو على بخي أيوة نوقف سكران أو المشاكل يوحن كحقنا إنه مشرع واقرت haddii aan soo koobo Lababaar santarka Lababaar waxaa hoos yimaad 30 tuulo haddii aan soo gaabiyo iyo kuwo kale oo ka badan waangart 30kaas tuulo wax haddii laga reebo Lababaar wax qabaan laga dhigay oo loo aqoonsan yahay oo dawladu ay samaysay ma jirto waangart haddii aysan jirin xuquuqihii aasaasiga ah oo aan dawladdaas ku lahayn kana aan tirsanin degmada Shiraabood weli wax aan ka hayno ma ay jiraan waangart haddaan tuulooyinkaas kuu sheego ka tirsan Lababaar Farcaano Alhabreed Qaraweyne meesha la yiraahdo Mayaayo Qaydar Balidhiig meesha la yiraahdo Mayaale Nagaxbuur Labagalle meesha la yiraahdo Balixindurey meesha la yiraahdo Laba Bagaase meesha la yiraahdo Balidaleel Andhawreed Baligod haddaan soo gaariyo intaas oo ku xaaran oo dhulkooda baaxadiisa 150 kilomitir oo isweer ah واقرتي sidaas ay tahay wax dhibaato ma ogiye waxaan dawlad kala kulannay ama degmada Shiraabood ka helnay ma ay jiraan waxaan nalamida nimanka la yiraahdo Mareexaan oo aan derisnahay oo ayagoos ay jooga meesha la Farcaano dad badan baa waxay ku doodayaan ama ay aaminsan yihiin in dadka ku dhaqan deegaankaasi ay iyagu sabab u yihiin in ay lumiyaan xuquuqdoodii asaasiga ahayd iyo kamid ahaanshihii maxaan ku yiraahdaa bulshada kale ee deegaanka Soomaalida ku dhaqan marka tusaale waxaan soo qaadan karnaa waa dad aan ayagiiba aaminsanayn inay deegaanka Soomaalida ka tirsan yihiin oo markay rabaana xagga u gudba markii roobku daana xaggan u soo gudba doodaas dadka qaba maxaad dhihi lahayd waxaan leenahay horta wax nagala hadla oo xuquuqaad leedihiin iyo nagumana hadleedin lama arko annagu waxaan baadagoobaynay ilaa dawladdii meel la saraawo uu hogaaminayay soo wad hadeer oo mataqaanaa ninka la yiraahdo madaxweynaha cusub ay hadeer la doortay cagshar inta
intii ka dhaxaysa annagaa dacwoonaynay waxaan tagnay jigjiga abridahare iyo degmada shiraabood oo ka tirsannahay welina waxaan annaga nagala hadla ama mataqaanaa na yidhaahdaa maxaa idinka maqan iyo maxaad leedihiin annagu ma aragno dowlad loo timaad ee xuquuqda aasaasiga oo aan lahayn haddii la fiirsho caafimaadka isbitaal midka dadka iyo kan xoolaha iyo waxbarasho iyo ceel iyo mataqaana iyo xuquuqaha badan oo mataqaana ee aan leenahay haddii dowladu ayna danaynayso waa doon waa ka soo weynay xafiisyaalkaa naloo diiday waana wax bini aadamka waa la xurmeeya xataa maamulna xurmeeya haddii degmo laga bilaabo gobolka lagu tago lana gaaro magaalada jigjiga xataa wax la xurmeeya ma aan arag iyo wax la qaabila waxaan ahayn dad baadi ah oo aan loo ogolayn inay xuquuq leeyihiin ama ay ka tirsan yihiin ama degmo ama gobol iyo madaxda sare weli waxa noo yimaada waxa noo dhiba ma ahane wax noo galada ma aanan arag waan gartay marka aad tagteen doodaha laydinka horkeenaya haddiiba aad dad la kulanteen ama waxa maaragtay to kalifaya in xataa laydin maaragtay ixtiraami waayo maxaa sabab u ahaad isleedahay waxaa sabab u ah mataqaanaa degmada shiraabood oo na fogaysay oo xuquuqdanadii inaan meel tagnan diiday iyo arrin qabiil oo mataqaana aada moodo dowladdii meeshii ay ka noqoneen dowlad in qabiil ay noqotay annagana nala fogaynayo taasoo sababta ay tahay marar badan oo waxaa jira ciidanka dowladda inta na soo aado oo na laayo dhibaato weyn mayd badan iyo qax iyo hati baaba ay nagu dhacday baragahanaga la duugay aada moodo dalkaba in laka barakicinayo laloona ogolay haatanna ay ku jirto degmada shiraabood dadkii waa dad deegaanka wada degan oo Soomaali ah maamulka khaladaad badan waa leeyahay waa la hubaa midaas laakiin inaad ku noqnoqotaan oo aad xuquuqdiina raadisaan oo aydan marnaba ka gaabinin ma isku daydeen waan lagu sheegay qofka bini aadamka wuxuu wax boobaa haddii wax loo ogolahay waana ku noqonnay waana soo weynay degmada shiraabood maamulkii mataqaanaa hore iyo midkii dhexe iyo midka haatan ka taliya dhibaatada nimankan nagu wada oo inaan dowladdii nacno oo aan nira dowlad idinma maqna dadkuna deris ma aha qabiilna waa la isku nacay waa jirtaa waxa taasaana qabatay annaga waxa aan sheeganayno beesha mariixaan sidoo kale u qabatay mataqaanaa aan isu darnaano ama mataqaanaa aan noqono dad ayagu aan mataqaanaa garashadoodii hooseeya laakiin waa dad wax ka dhexeeyaan xidid ah deris ah isku diina isku dowlada hadday dhanka soomaalida tahay iyo hadday tahay dhanka Ethiopia ugu dambeyntii Khalif maxaad ugu baaqi lahayd xukuumadda cusub ee madaxweyne Mustafa hogaaminayo waxaan ugu baaqi lahaa oo ka codsanaynaa in oo naga waxiyo xuquuq badan ayaa naga maqan wax loo maqan dowladda ma jirin waxna loo galay ma jirin inuu na dhex yimaado dhibaatada arko oo mataqaanaa waxa aan kabanayno wixii uu ka gaaro inuu noo qabto ayaan ka codsanaynaa maamulka shiraabood waxaan leenahay waana xumaydeen mana kala maarano marka anagana xumaydeen dowladda laftirkeeda adinkuna waa ku dhibaatooteen ninkii xaqdarro sameeya xaqii ka maqnay ilaaba war xaqa naga maqan doona adikana waa idinka maqan yahay annagana waa naga maqan yahay dhibaatadana naga daaya war walaalayaal soo dhawaadan idin leena